kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janalkeena ka wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona shirka golaha watashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo ugu dambeyntii heshiis rasmi ah laga gaaray qodobo muhiim ah oo markaasi caqabada ahaa oo gabi ahaanba la soo afjaray heshiis buuxan laga gaaray waan soo gudbin doonaa dowladda federaalka waxay sheegtay in maanta oo Arbacada la nasan doono birno la isku imaan doono sadex heshiiskaasi la wada gaaray haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa sida ay heshiisku u dhacay iyo qodobada laga heshiiyay sidoo kale waxaad daawan doontaan oo ku saabsan ardayda ku nool magaalada Muqdisho oo halis ugu jira inay gabi ahaanba ka haraan imtixaanka shahaadiga dugsiga sare oo sanadkan wasaaradda waxbarashada ay qabanayso isla bisha lagu jiro oo ay soo dhowdahay in ka badan 130 arday ayaa xogtooda leeray oo gabi ahaanba iskaga haraya shahaadada imtixaanaadka dugsiga sare ee dalka waxyaabaha ku kalifaya ayaad maqli doontaan Hirshabeelle madaxweynaheedana wuxuu ku guuldareysay in uu la heshiiyo beesha xabaadle haddaba arrin hortaagan oo cali gudaha caqabad ku ah ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo waxyaabaha kale ee soo kordha oo geeska Afrika uga horeyso qaramada midoobay oo ka digtay macluul markaas in ay ka dhacdo macluul inay ka dhashto gobolka geeska gaar ahaan Tigray waa dalka Itoobiya waa idin soo gudbin doonaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaran kambalka nafuro una sheer garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo markaas like kuma tigna inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilaawno golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay shir gaar ah waxay ka yeesheen xaaladda Soomaaliya waxa ayna markaas ay ka hadleen wararkii ugu dambeeyay shirka arrimaha doorashooyinka waxaa halkaas khudbad ka jeegay hortagay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq waxa uuna ka hadlay shirka socda iyo maalmaha soo aadan oo la soo gabagabeynayo iyo heshiiska laga gaaray ugu horeyn wasiirka ayaa waxa uu markaas khudbadiisa ka horjeeday golaha ammaanka waxa uuna ku sheegay in heshiiska laga gaaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo ahaa qodobada ugu muhiimsanaa ee loo qabtay shirkaas wasiirka waxa uu soo kala sheegay in madaxda Soomaaliya ay shir maalmo qaatay oo weli ugu socday magaalada Muqdisho ay ka gaareen horumar waaweyn isla markaana heshiis laga gaaray arrimihii la isku hayay ee doorashada ku saabsanaa soo kale wasiirka waxa uu khudbadiisa ku sheegay in dhinacyada ay ku heshiiyeen qodobadii muhiimka ahaa ee muranka ka taagnaa isla markaana ay war-saxaafeed si wadajir ah u soo saari doonaan maalinta birita ee soo socota Khamiista 27 bishan kiisa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay James Swan isagoo warbixin ku saabsan Soomaaliya siinaya golaha ammaanka ayuu wuxuu bogaadiyay tanaasulka ay muujiyeen hogaamiyaasha Soomaaliya iyo isafgaradka socda dareenka tanaasulka weli waa meeshiisii si degdeg ah ayuu u baahan yahay in heshiis buuxa loo gaaro ayuu yiri James Swan iyadoo oo aan weli wax heshiis ah laga gaarin aan la shaacin ayaa xukuumadda golaha ammaanka ee qaramada midoobay la wadaagtay in wax kasta laga heshiiyay balse sida aan xogtu ka nagu yiri Jameson weli lama xalin qodobka ay ku jirto arrinta Somaliland tan iyo sabtidii toddobaadkan Wasiir Roble iyo madaxda maamul goboleedka ee duqa Muqdisho ayaa shir ugu socday sanadda Fizooyin waxaana la soo wareejinayaa ama soo warinayaa in afartaasi maalmood wada hadalkoodii socday laga gaaray horumar muhiim ah waxaana lagu wadaa in Khamiista maalinta birita ee la soo gabagabay doono shirka sida uu shaaciyay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qabi hore ayaa daawanaysaan fadlan halmaamina subscribe saarto gobolka nafurto una sheer gareyso saaxiibada meel kasta ay joogaan markan jamalka ka wararka ayaa ogaaday in ugu yaraan 130 arday oo ku nool magaalada Muqdisho ay wajahayaan halis weyn oo ay ugu baqayaan karitaanka imtixaanka qaranka ee dugsiga sare kaas oo sabtiga ka bilaabo doona Muqdisho waalidiin badan ayaa waxa ay sheegeen in ardayda oo iskuulka jooga muddo aan ka yarin 12 sano in laga waayay heliiska ardayda imtixaanka garaya oo ay shaacisay wasaaradda waxbarashada dalka markii la baarayna ay ogaadeen in loo qoray drop oo loola jeedo in ardayda ay uga hareen waxbarashada ama maamulka iskuulka Xuseen Bootaan Xasan ayaa waxa uu sheegay inuu ka tirsan yahay guddiga waalidiinta ee iskuulada ku yaal Muqdisho isla markaana ay dhigato gabadhiisa muddo 12 sano balse wasaaradda waxbarashada Soomaaliya u soo qortay drop taas oo xadgudubka xuquuqda ardayda Soomaaliyeed waxaa la kulanay ilaa 3 agaasimo ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha waxbarashada gobolka Banaadir dhammaan waxba kuma qaban karno ayay dhaheen waxaana ku muteystay waxaad gudub waana ku tagrifal waxaasi nama qabtaan ayuu yiri Abu Xuseen Bootaan Xasan sidoo kale qaar kamid ah
waalidiinta wajahaya dhibaatadan ayaa waxa ay janalka ka wararka u sheegeen in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay u sheegtay in iskuulada iyo daladaha aysan u soo gudbin magacyada ardayda oo ay u raadsadaan. janalka ayaa xaqiijiyay in ardayda qaar ay si buuxda u dhigi jireen iskuulada isla markaana ay kaalmo hore ka geli jireen imtixaanka iskuulada ay qadaan ardayda gaar ahaan kuwa markaas natiijo fiican ka keenaya iskuulada dalka ku yaala. inkastoo haatan loo gudbiyay drop wax loo yaqaan oo ah in ay ardayda iskuulka ay ka hareen lama oga sida ay ku dhammaan doonto arrintan. waxaase muuqata in caruur badan ay la dhacayaan dhibaatooyin aysan xaq u lahayn in ay maraan. qaybihii dhexe ayaa daawanaysaan janalkeena ka wararka, fadlan hilmaam inaad subscribe saarto, gambalakana furato, una sheegarayso saaxiibada meel kasta joogaan. adigu had iyo jeer kumatiga laagana nagu dhiirigelinaya. aad baad u mahadsantihiin. markaan Hirshabelle ila wareejinta kusan xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guud Xuseen ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabelle uu dhowr jeer isku dayay inuu la heshiiyo beesha xabaad oo diidan maamulkiisa, laakiin uu la kulmay caqabad ilaa haatan taagan. xubnaha ka tirsan xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed in looga dambeeyo beesha uu ka soo jeedo ee xawaadle, isla markaana uu awoodi waayay in uu wada hadal la furo. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu diiday in la dhinac maro ay qof kale kala hasho arrimaha Hirshabelle, taas oo ku tilmaamay inay meel ku dhac ku tahay matalaadiisa. wax badan ayaa isku daynay, laakiin madaxweyne ku-xigeenka ayaa yiri yaan la ii gadaal marin, balse waxba kama keenin in si toos ah madaxweynuhu ula xiriiro. waa diiday ayuu yiri la taliyaha sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Hirshabelle Cali Guud oo la hadlay marka ka ah wararka. gabagabadii ayaan isu soo garan daawadayaal. markaana wararka gobolka Geeska waxaa ugu waaweyn qaramada midoobay waxa ay ka digtay macluul markaasi ka dhacda gobolka Tigray. sarkaal muhiim ah oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu ku wargeliyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin ay macluul baahsan ka dhici doonto gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. sarkaalkan oo lagu magacaabo Mark Rutte oo ah wakiilka arrimaha bini'aadanimada xuquuqda xogaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu golaha amniga u gudbiyay warbixin uu ku diyaariyay xaaladda gobolka Tigray. Rutte ayaa sheegay in haddii laba bilood ee soo socota aan si degdeg ah loo xaqiijin gargaar bini'aadanimo ee dadka ku nool gobolkaas ay colaaduhu ka jiraan ee Tigray ay khatar ugu geli doonaan macluul. guud ahaan daawadayaal waana intaa wararka waaweyn ee aad kala socoteen janalka ka wararka ee Soomaaliya iyo caalamka. fadlan hilmaam inaad subscribe saarto, gambalakana furato, una sheegarayso saaxiibada meel kasta joogaan. adigoo markaas kumatiga laagana inoo reebaya. aad baad u mahadsantihiin. nabadgelyo.